नमस्ते। दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा लोग चुरा रहे हैं। India. maanta safarkeenu wuxuu ka bilaabanayaa dalka ugu dadka badan dunida. India. Waxaan joognaa magaalada taariikhiga ah ee Hyderabad 10 million. oo magaalo ay ku nool yihiin ku dhowaad 10 milyan oo qof. Population of laakiin tani waa hal magaalo oo keliya. qiyaastii dalka oo dhan dadka degan waxay ka badan yihiin 1 bilyan. Hyderabad waxaa caalamka lagu yaqaan hal shay oo gaar ah. biryani equal cuntadan caanka ah India ayaa astaan ku noqotay. waxaana dadka ku dhaqan halkan ay u arkaan qayb nolol maalmeedkooda ka mid ah. safarka waxay noo bilaabay qoys martigeliyey socdaalkeena si aynu ugu baranno hab nolol maalmeedkooda, dhaqankooda iyo qiyaamka ay la nool yihiin. kadib safarkeena India waxaan u gudbaynaa qaaradda Afrika, gaar ahaan dalka Rwanda. halkaas waxaan ku baran doonaa qoys caan ku ah muuqaalka gaaban ee dabiiciga ah, qoyska ugu gaaban Afrika. waxaan si dhow u ogaan doonaa sida ay u nool yihiin. ugu dambeyn waxaan u dhisi doonaa dukaan yar oo ay ku shaqaystaan si ay nolol maalmeedkooda uga helaan. taasi waxay noqon doontaa hadiyadda uu safarkeenu ku dhammaan doono. safarkeena waxaan kusii joognaa magaalada Hyderabad ee India. halkaas aan kula kulmi doono qoyska ugu gaaban adduunka. qoyska oo dhan waxay joogaan guriga, annagu waxaan u nimid si aan hadiyado u guddoonsiino. salaanta dhaqanka India ayaa markiiba lagu soo dhaweynayaa. waa mid ka mid ah family-ga aan u soconno. waxaan gelaynaa waddo yar oo ku taal dukaanka yar agtiisa oo dhinacna supermarket ah. qoysku wuu ballaadhan yahay, wuxuuna ka kooban yahay aabe, adeer, walaalo iyo qaraabo kale oo badan. gabadhan ayaan idin barayaa waa walaashii. Namaste. waxaan weydiiyey nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinka ay qabtaan. So their job in wedding season is they sit on the entrance and welcome everybody. They dress well and they sit just on the door for hours and welcome people while entering the wedding. It's like a statue. Oh, really? Their job is like status. Some people are confused that they are statue or they are real people. And some people get scared like what kind of statue it is. Just Really? walaa soo baranna aabahood waa kan dharkiisa gaarkaana sidan ayay चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। She's a YouTuber. नमस्ते करते हैं वहाँ पे फंक्शन में और ऐसा अस्सलाम वालेकुम करते हैं। koodba midka kale uu caawinayaa. da'dooduna gabadhan waa 29, 27 iyo 25. markaan weydiinay nolol maalmeedkooda iyo jacaylkooda waxay noo sheegeen they never approach that person because they are not sure that they will like them back or not. जैसे आप बोने तो आपको बोना ही मिलेगा, आप बोने से ही नहीं हमारे फैमिली में किस्मत में कैसे वैसे चलेगा। It's not important that they are dwarf, they have to marry a dwarf. It's like they can marry a normal person and they can have a normal kid. Like their aunt is married to a normal person and they have a normal kid. tani waa hooyadood. waxaan weydiinay dhararkeeda iyo khibraddeeda nololeed. waxay tiri iskuulka wax dhiba iguma aha, laakiin mar kasta oo aan waddooyinka dhex maro waxaan la kulmay ereyo xanuun badan oo dadka qaar ay igu tuuraan. si kastaba ha ahaatee hooyadani waa haweeney la adkaysi iyo kalsooni. waxay tiri dhararkayga waa hadiyadu ilaahay siiyey, anigoo hadalka dadka dheg sharaq uma siiyo. qoyska dhexdiisa walaalka weyn ayaa ah difaaca ugu muhiimsan ee gabdhahooda. wuxuu sheegay inuu ilaahay u soo diray si uu u ilaaliyo inuu difaaco markasta ay wajahaan dhibaato ama aflagaado. markaan weydiinay waxa farxad geliya, jawaabtoodu waxay ahayd mid qiiro leh. waxay ku farxaan marka qof si kalgacal leh ugu dhool caddeeyo, iyagoo u mahadceliya oo u tixgeliya sidii dad caadi ah, iyagoo aan lagu xukumin muuqaalkooda. waxaa kaloo ay si gaara ugu farxaan marka dadku sawir la wadaagaan, xitaa xafladaha ayay tagaan si ay sawir la soo galaan. guriga dhexdiisa waxay ku nool yihiin nolol caadi ah. meelahan ay seexdaan ayaa mararka qaar dadka qaar ku tilmaamaan inay yihiin hadiyad ilaahay ka timid. xitaa waxaa jira kuwa yimaada oo cagahooda taabta si ay barako u helaan. Her feet to get blessings. Really? Yes.
Touch your feet. Are. No, no. So what? markii aan weydiinay hiwaayadahooga waxay noo sheegeen in midkood aad u jeceshahay cunto karinta gaar ahaan diyaarinta chicken tikka iyo cunto dhaqameedka sidoo kale cunto karintana ku wanaagsan waxay maanta ay diyaarinaysaa cunto dhaqameed caan ah oo loo yaqaano doosa waxa kale oo ay jeclaanaysaa inay u diyaariso shaaca caanale oo martida lagu soo dhaweeyo kusoo dhawaada ay ku odhanayaan martida waxayna ku casuumaan inay wada cunaan Welcome. markaad la joogto waxaad dareemaysaa sida aad u dhex fadhido filim xataa qaar badan ayaa lagu xasuustaa jilayaasha caanka sida Salmaan Khan qoyska waxaa ka mid ah adeerkood oo dukaankiisa yar ku leh xaafadda dhexdiisa No married. No marriage? No married. Okay. Please, Salman Khan, meet this guy. Please. Please, I am big fan. Salman. Yes. Sallu Bhaijan. Uncle shop? Uncle Shop. You are sit, Uncle Shop. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Welcome so much. qoyska intiisa kale ayaa caawiyayaal ah iyadoo gabadhan 19 jirka ah ay iibisay iyada dukaankan aabahooda oo 45 jir ayaa sida kale la jooga si uu la wadaago khibradiisa nololeed innagoo wada fadhina ayaan ku odhan doonaa cabitaan noo keen dabadeedna cabitaankan caanka ah ee India looga yaqaano tambisaab ayay noo keenayaan qoysku waxay yidhaahdaan tani waa cabitaanka Salmaan Khan uu u jecel yahay waana calaamad farxad iyo wadaag ku salaysan qoyskan ku nool Hyderabad waa qoys leh ruux degan oo naxariis badan inkastoo ay wajahayaan caqabado nololeed iyo muuqaalo gaar ah haddana naftooda kama arkaan inay ka duwan yihiin dadka kale waxay u arkaan naftooda hadiyadu Ilaahay u siiyey caruur Ilaahay ka timid oo sharaf iyo qadarin mudan Yeah, his kids are everything for him because they are God gifted also. Okay. Gift from God. Yeah. qoyska waxaa ka mid ah aabahood adeerkood walaalkood iyo gabdhaha kala duwan ee sharafta badan waxaa muuqata xiriir qoys oo aad u dhow mid kasta oo ka mid ah xubnahan uu qoyska ku taageerayo midba kale Coming. हाथ पकड़ हाथ पकड़ो ते लोग ugu dambeyntii hadiyadahan yaryar way ku farxeen waxayna ahayd markii ugu horreysay ee si gaar ah wax loogu hadiyeeyo mid kasta oo ka mid ah qoyska ayaa mahad celin iyo farxad muujiyey iyagoo helay hadiyad ay aad u jeclaayeen He's saying first time somebody have gifted something. Everyone here? Guilty of being a dwarf. Short stature, aka dwarfs. This name in our days may carry a degree of insult. dwarfism waa xaalad caafimaad oo hidde-sidaha la xidhiirta taasoo qoyska ka dhigta mid leh dharar gaaban markay gaadhaan da'da qaangaadhnimada caadi ahaan waxaa lagu qeexaa qof weyn oo dherarkiisu ka yaryahay 135 sentimitir haddii haddaba xaaladdu ay tahay mid hormoon la'aan ah carruurnimada ayaa lagu daaweyn karaa iyadoo la siinayo daaweynta hormoonka koritaanka waxaan hadda soo gaarnay Rwanda si aan u dhammaystirno sheekada hooyada iyo carruurteeda ayaa markiiba na soo dhaweeyey kadibna aabbaha qoyska ayaa noo yimid nice to meet you ayuu nagu yidhi annaguna si diiran ayaan uga This jawaabnay is the father. carruurta kan ugu yar oo 5 jir ah ayaa shixshood loogu dheganaa gacanta aabihii qoyska ayaa nagu casuumay gudaha gurigooda How old are you? He's 45 years old, the father of those children. waxaan bilownay booqasho yar oo aanu nagu tusayaan hoygooda tani waa fadhiga halka ay ku wada qaataan wakhtiga sheekada iyo wadajirka qoyskoodu waxaan joognaa tuulo degan oo xasiloon halkaas oo noloshu ku dhisan tahay dhulka iyo beeraha waxaa nala jooga nin 45 jir ah oo nolol maalmeedkiisu ku xidhan yahay beerashada wuxuu noloshiisa u hubeeyey inuu dhulka wax ka soo saaro isagoo xooggiisa iyo wakhtigiisaba ku bixiya inuu qoyskiisa u helo quudin iyo dhaqaale Family. To agriculture, just for living. Farming? Yes, farming. haddabana eegna qof kale oo muhiim ah waa curadka xaafadda waa 16 jir
wuxuuna wataa mas'uuliyad culus oo ku saabsan mustaqbalka qoyskiisa. 16. Markii hore ninkan beeraleyda ah ma sahlanin noloshiisu, wuxuu sheegay in dadku ay ku qosli jireen, qaarna ereyo xanuun leh ay ku odhan jireen. waxaa lagu tilmaamaysan jiray muuqaalka iyo nolol maalmeedkiisa, taasoo dhaawici jirtay qalbigiisa. laakiin waqtiga ayaa wax walba bedelay. wuxuu bartay inuu la qabsado waxa caadi noloshiisa aysan ku jirin sida dadka kale u arkaan, balse ay ku jirto sida uu isagu naftiisa u qiimeeyo. qoyska uu dhistay iyo beeraha uu ku nool yahay ayaa ah guul weyn oo uu ku faani karo maanta. subax kasta carruurtu waxay xidhaan dharka iskuulka. waa safar maalinle ah oo muhiim u ah mustaqbalkooda. orodku waxa uu dhigtaa dugsiga sare, walaashii iyaduna waxay ku jirtaa safar waxbarasho. This is how they go to school. Of course, the father take them to school and mararka qaar wiilka weyn wuxuu ka caawiyaa gabdhahooda yarar diyaargarowga iskuulka. marka labada qoys la isbarbar dhigo, waxaa muuqata sawir dhammaystiran oo nolosha caalamka ka tarjumaya kala duwanaansho, isku mid ahaansho, caqabado iyo riyooyin. mararka qaarkood habka ugu wanaagsan ee qoys loo caawiyo ma aha oo keliya in loo keeno gargaar degdeg ah, balse in loo abuuro fursad nololeed oo joogto ah. taasi waxaan ka baranay qoyskii hore ee aynu ku aragnay India. open. This is the shop. What he's gonna call the shop? He's thinking he is happy because qoyskan aan halkan ku aragno ayaa iyaguna heli doona fursad la mid ah tii aynu India ku soo aragnay oo kale. This is your store now, huh? aan go'aansanay inaynu koreyno dukaan muddo 1 sano ah oo aan u buuxino dukaanka si uu ganacsigooda ay ugu bilaabaan. maanta wuxuu gacanta ku hayaa furihii dukaankiisa cusub. wuu qoslayaa, farxadna way ka muuqataa, inkasta oo weli ka fikiraya magaca dukaankiisa u bixin lahaa. wuxuu sheegay inuusan weligii sidan oo kale u farxin,